السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتك كحرا يوتيوب كنا ملك استأذن كذا في سكي جوكتين آذا إيدين سلامينا أصحابي وإيدين حيسا وإيدين جعل مالمان إلى نصهر فريسا آذا نقول حيس دي سكن هتيني لما قادو واني اللي تبا يا وايو لا عندنا أبار واي سودا فيديو عصب channel كذا كعصب تو على قاعد سنة هنا اسكسب سكراب جريشت العقد ما هو بلاش سودا كل فيديو ولا تيسسيها يلوبين كومنتين أنا عاير فكرة هذا نقوله وذاك لو ما لنا هذا يوتيوب كهلا عرب luuqow galaa dee dadka hadalka badan mihiyo marka xafada joog waa iska aamusanaha marka kale tan youtube la soo fariisana afarto eray la tuurtaa markaasaan marka youtube kale imaanin ba hadalka uu dhulumaya sorry soo dhawaada maxay ahayd cid dadka hore noola joogiyo dadka hore waa oo cusub shaqadaas waa loo sheegay Soomaa waan ili sheegay waana codsi dadka hore noola joogay shaqadiina qabsada adinka marmeetan ilmo faraayo shaqaysta gacmaha ka dhaqdhaqaajiyo video like share comment ka kiiloobina inta kalena waa dhankiina heeya soo dhawaada waa idin jecel asxaab waxaa idin hayaa video murugadiisa wato hooyo Soomaaliyeed alla maxay hooyooyinka Soomaaliyeed dib mutaan ee mar walbeeto ooyaan inta hooyo Soomaaliyeed idinteeda qabanaysa wallahi yaa ku dhaartay inaan liibaan la arkeenin maalin walba hooyo oonis maalin walba hooyo wax ka qaldin maalin walba hooyo si un halaag iyo hoog halkuu naga sugnaad aan nabada ka heli la'ana waa hooyooyinka Soomaaliyeed aniga sida aaminsanahay because saddex mar ay aaba ka xaq badan tahay hooyo mar walbeetana waxa la dhibaateeyo waa ayada oo u nugul aad ugu nugulin maamooyinka dhibka ma garanayo malala toos ma lala bartilmaameedsada ma aqaani wallahi hooyo Soomaaliyeed inta lagu weysiinayo kolay tago najaaxa iyo guul midna ma sugeeno waayo ayaga wax ku nahay hooyo waa mid 9 bilood caloosha nugu soo wado hooyo waa midna soo barbaarisay hooyo waa mid marka tira caloosha ka rogmado ama beerka walaaxo aad oo waxma in mar walba hooyo Soomaaliyeed dibkeeda arko ilaahay waxa uga baryaaya inta hooyo Soomaali ka yimaad inta hooyo adduunka dul saaran inuu soo wax dhibato sin inta uu dhibka heystane ilaahay ka dhex bixiyo oo dhibka heysta farxad Allah ugu bedelo duca ka shkilaabta ka soo go'do waayo qof walbeeto hooyadiis sida uu jecel qof walba hooyadiis uu jecel yahay qof aniga hooyada sida uu jecel adigan hooyada uu jecel waa laga yaabaa hal ilo uu ifeeso caasi inay jiraan ayagan Allah soo hadeeyo hooyo Soomaaliyeed ee u waalatay wiilkeedii ay weysay wax kala ma hanti uma waalanin guryo uma waalanin waxay u waalatay dhasheedii jirkeedii ka soo go'ayada ee weysay maxaa ka xanuun badan cunugaadii aad goob waxbarasho u dirsatay ama iskuul haada ama dugsi ahaade aad farxad ku macsalaameysay subaxii salaad inta u kacday quraac u dubato siisay hooyo wax ii soo baraa dhahday ee waqtigu uu soo laaban jiray ama soo rawaaxi jiray aad guriga ka weysay walwal intee leeg ayaa dareemaysaa inta hooyo ah unba dareemi karto xanuunkaas inta hooyo ah dareemi karto inta kale tan maba dareemi karaan because hooyanimo cidii taqaano inta aniga kamid ahay hooyo mi hadane waxa la damaqanaya hooyada Soomaaliyeed la damaqanaya ilaahay kurba feeda waayo kurbada Allah ka feeda leeyahay wari aan ku dalna video ila daawada sida ay u raadinaysay wiilkeedii saacado manaysa sorry yara ee Cabdiraxmaan oo ka maqan muddo isbuuc ah ayay u waalatay hooyo Fahma Macalin Maxamed waxaana haatan lagu hayaa xaafad ka tirsan degmada Daynile iyadoo ku sugan xaalad daran hooyada u waalatay maqnaashaha wiilkeeda Cabdiraxmaan Shire oo 12 jir ahaa ayaa aaminsan in laga xaday wiilkeeda sida uu ku waramayo Cabdullaahi Jimcaale oo abti u ah wiilka la weysan yahay hooyada wiilkeeda muddo isbuuc ka maqan yahay 1 week inta may ku taala 7 maalmood cunugaadii ka maqan 7 maalmood iska day 7 saac hooyo hadii laga maqan yahay hooyo madana dhashay waay wallahi yaa ku xilli imagine hadaad ka soo dhaw martid ama ka soo dib dhacdid hatta telefoonaysid waa ku soo maxaa kugu dhaxay ma nabada qabta hooyo Allah hooyo ilaahay hooygeeda jannada Allah ka yeelo hooyo lagama kaftan hooyo maxmaan mudno hooyo mid laga isiiman hooyana mid ilmaheeda laga taabto laga xado ma aha ilaahay u badbaadiyo hooyadaas cunugeeda isbuuc ka maqan yahay 1 week inta may ku taal inta isbuuc ka maqan yahay say habeen iyo maalin uu imaan doona way raadisaa way baxdaa subaxii sida qof baadi ka maqan taa wada qof nool ka maqan subaxii way bixaysaa way meel soo dadaysaa isbuuc dhan qof maqan inta ku taalo way soo raadinaysaa way soo laabanaysaa habeenkii way soo raadinaysaa isku soo laabanaysaa talo ma soo arki doontaa cunugaadiyo nabad qabo ma quusanaysa caaw markay soo hoydo inaysan nabad ku seexanaa laga yaabaa qof hilibkiisi maqan yahay nabad kuma seexanaayo waxaa laga yaabaa inay qalbigana ka soo jeedo indhahana ay isku haysato inaysan seexanaa laga yaabaa leelkii oo dhan ay soo jeedo way baxda way soo laabata isbuuc dhan albaabkaas
xanuunkaas waxaa dareemi karo hooyadan maskax bili aadan wax yar oo iska daciifo waayo muraayada isku fiirinaysid way ka khafiifsantahay wayna ka fududahay jabitaankeeda hal isbuuc cunugeeda ka maqan halka isbuuc isku bedeshay waa ku dhahday iska sacba toban ee dadka hortooda ma ogo dadkii tuuriyana dariska qalbi bili aadan wallahi waxaa ma daciif aada daciif u nahay Soomaaliya waxa ka socdana wallahi billahi wax indaha laga qabsan karo maan Soomaali mashruuc waxa ka socdo ilaahay xaalkiisa og yahay indaha laga ma qabsan karo dadkina way iskiin nadirayaan cunuga la xaday maxay ahato gabara la dafay cunug waayo dad waaweyn gabdho waaweyn oo iskiilo loo dirsado 15 ka badan la dhahay waa la xaday kaliya iska baxsanooya hadana waxa Soomaaliya ka socdo dadkeeni ilaahay ha badbaadiyo wax kale oo dhan ma aqaan wallahi aad uga calaamad xumaada mar walba social media aan soo galo waxa ugu horeeya arko waxay noqonaysaa cunuga la xaday cunuga la baafinaya walaalayaal nala raadiya marka arko wallahi bilaa beerka bacaydo sababta nabad soo noqon doona qofkaas ma ogid kaliya hal iskala buuxaya beerka iskala buuxaya sheeka ah la soo rajiyo ayaantaan turmiya beemiya mala yaqaan hadii sarun ahayn ee sheegaas wax ka jirin ee sal iyo raad lahayn waxa la heli lahaa ilmihii la xaday la heli lahaa soo laaban lahaa ilmaha iska maxan 12 sano jira cunuga 12 sano jira maamadan hadda xanuunsan oo maskaxda wax ka gaarin cunugeeda 12 jir gurigooda ma soo aqoonaynayo 12 sano cunug weyn waayo gurigooda ma ka dhumaayo ina wax kala jiraan laga yaabaa in la duufsaday in la xaday in 12 jir cunug aqli leh waaye ilaahay ha soo iftiimiyo oo Allah sahalo haduu nool yahay haduu dhintan Allah uma xariisto saqiir asaga inuu dhintan uma meelana inuu meelaha ku jire ilaahay rabbi raxmaan oo soo iftiin wax kala sheega ma aqaan cunugaadiyo wax barasho u dirto ka maqan xanuunkaas waa ila daawa yaa warin gudana saxiibiga ugu daawa saas dad mashquul ka yeeshay galabaan doonay xalad ila la wada ogolaado xalay television qorshe xalay 12 waagaan noo soo koyno baray saakan soo qaad intaan keenay marka bariid waxaan isla bal sabtiga dhakhtar iyo qolbirina quraan saan raba sabtiga dhakhtarkay qoftu isla hadashay Cabdiraxmaan ayaa markii dad ugu dambeysay waxa uu aaday dugsi quraan oo uu dhigan jiray waxa uu ahaa wiil fahanka ku fiican sida uu sheegayo Cabdullaahi Jimcaale wiilku aanu taamo ahay aanu fiican u ahay dugsi dhiga quraan waxay uga dhimayeen wax joogaysa iyo hadda ka hor hal mar oo dugsi ka bixi waasay marka xaafadda laba caw ka waxa hadlaayo walaalkeeda ama wiilka maqan abtigeeda ayadoo xanaaneynaya guriga waxa loo keenay in la quraan saaro dureerkeeda xitaa waa laga soo wada maamada si isku hadalay hadalay bilowdo hadal isbuuc cunugu maqan yahay hadalay bilowdo maskaxdeena waxa uma ahan loo biro isla hadalada stress iyo depression iyo balaayo ku dhacayaan ilaahay anaga najeeyo inta muslimiin Allah ka najeeyo way isla hadashay maamada isla hadalka maskaxdiga buuq isku furtay dadka inay tuuriyay bilowdo controlka waa dhamo iska sacbinaysa dadka tuurinaysa quraan saara inta loo keenay marka ilaahay daawaha ugu daro cunugeedina Allah u soo iftiimiyo u duceeyna maamada Soomaaliyeed u duceeyno dibkeeda waa dibkeena waayo hooyo Soomaaliyeed dhiban uuna taabanaya ilaahay ha ka qaada dhibaatada qof walba muslim oo Soomaali ah iyo qof walba muslim oo adduunka jooga dhibka iyo qurbada Allah ka feeda ilaaha qurba feeda Soomaaliya waxa ka socda dawlad iyo dad shacab intaba haloo ka cariilaan hal ka Soomaaliya waxa ka jira wax la fiirsan karo indaha laga qabsan karo ma aan dadkii maxaa ku dhacay maal walba cunuga la baafinaa maal walba gabar la baafinaya mar waa ku filayay mar ilmihi waa la xadal yiraahdo dadkani maxaa ma hobteen bismiya wax qabasho ma jirto miya wax ma isku qabanaa miya war inta damiir kale dadnimada ay ku dhiman tahay hal ka hooyooyinka Soomaaliyeed ilmooda haloo badbaadiyo ilmo doorto ishaada ilka lama doorto cunuga ilaalima karto adigu ma cuntadiisa aad karisaa mise quudkiisa aad magaalada karisaa mise asaga ilaalisa adduunka meel aan Soomaaliya kaliya aan dunida horumartay Afrikada dhan Soomaaliya la mid tahay dunida horumartay ilmaha la ilaashada wax barashada la leeyahay waa laga soo wataa kama fikiraysa bariiskiisa meelaha lagu saaray Soomaaliya hadaan ay Afrikaantan kalabo bariiskoodan burinayna cunuga ilaalima karno ilmo ilaaliso ilaalin karto cunugan soo faayo wax barashada aadayo ilmaha la soo dheelaayo maxay ahayd magaaladiisa maray ma ilaalin kartid hay magaalada u dirto cunuga haduu bahal galeen ee ku noqoto gabaran wallahi mashruucan caadi ah Soomaaliya ka socdo waxa ma khali jiray burcad duleed waaye kacsanaa jirtay burcad ilmihiida caasa soo baxday burcad ilmeed ma laamso burcad dadeed ma dhigi kara ilmihiya waxa loo gurubsanayaa sidii badeeca amal $500 wallahi فيديو ما هو في السنة أفجوية محيها أفجوية ما قلتني ولا أفجوية ويلو على وقت إني من حدا المو وقول هاي قبل على قرية ما يقعوا قادتين الله $500 حالا يا $500 طفلا أو بني آدم أو نو أو
هوي سجال بلاد على الكسو بدي كريمة ده ميت وغير شن سنة لح سنة هدي اللي جاي على علوم تسجيل تلاقي رأي معي شن بقول والله أسست حاله عصق حاله إلا طه شن بقول ضرقف بالقدر وحلا سيستم شن بقول حاله لا شيء جاوا معهن قفك مركب خاننا حاله إلا طه نبى هنواي نبى المركب عنو قاعد مو وصلنا دالين عصق دبك بس أمرين لحالنا كم هايا شن بقول عشان كتير بقول دور حتى وقادنا يا مركب قيد سوق صحنا يا ضمير لاويات اسبين سدا ودن كينا maxay ku qaadanayo mashruuc laga qabto 4 iyo 5 iyo 6 way kii la qabto wallahi birtiisa hadii lagu toogto kii cunug lagu qabto ama falxin iyo ilma xadow iyo balaay lagu qabto madil marsiyo xitaa qoraya lagu dilaa ilaa ani madiha la marsiyo dhiigkiisa banaa kuwa kale oo seexadaya cunugan xadowgiisa awal intuu u waday galgacal iyo naxariisi maxabu uma wado meel lagu qalaayo dad qalata wada asila asaga oo qaloob uu wala asaga ha loo qada qalaan ilaa ani asaga ha loo qalo wallahi saari laayani because ونجا هاري لها ودبكس إيه وحسنا نجا هاري لها يعنوا على حد ضمن ما مقل لهن لكن محرسمين يا والله خبنا يا فيه يا رأى قضوا كل بير الله عنو كان حدا كان أدو شو بقول داروكو خاينا حبسي على جيال ولها لو برك بعد المجال دي سوقوا كلا كسي حلا